بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لها كحرا تيفيق عالمي دي اس دي تي في iyo janalka Tolman Production waxaan idin wadaa warbixin aan ka diyaarinay faalooyinkii aad noo soo qorteen kommentiyadiini quruxda badnaa. dadku waxay isugu jiraan saddex qaybood: kuwa wixii aad u tabisay oo khayrkii ahaa, muraadad bay lahaayeen, kurba haysay, arin bay doonayeen in Ilaahay uu fuliyo, way ku dhaqaaqeen, natiijo qurux badan bay ka keeneen. qaar ka mid ah wanaagga iyo khayrka markay arkeen ayay kugu dhiirigelinayaan oo waxa ay ku leeyihiin arrintan waa arrin wanaagsan, ha ka daalina hor u socda. laakiin waxaa jira qayb saddexaad oo qaybtaas maxay tahay? qayb u samaysanba negative, maaniciin weeye, iyagu wax ma samaynayaan oo khayrka ma doonayaan. dadka khayrka samayn lahayna waa ay ka maanicayaan oo waa bushi bay gelinayaan oo dhib bay ku samaynayaan oo meesha waxay u joogaanba si aan khayr loo faa'iidin, arrin khayrna aan loo samaynin. laakiin waxaan horumarinaynaa Ilaahay qaybtuu horumariyay oo qaybta wanaagsan, dadkii ka faa'iiday oo natiijooyin qurux badan ka soo saaray oo ka sameeyay ku guuleystay muraadaadkooda Ilaahay ku sahlay. ma soo wada koobi karno oo qaybtii maanta nasiibka u yeelatay ayaan ka soo qaadanaynaa, innagoo samayn doona hadduu Ilaahay yidhaahdo inaanba qaarkoodba kool ama cod aan ka soo duubno oo aan caadi u waraysanno. laakiin maanta kommentiyada ayaan akhrin doonaa qayb ka mid ah. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah oo aan ku soo tabinno faalooyinka dadka ay noo soo bixiyaan. waxaan ku bilaabayaa walaal la yidhaahdo Jaabir Yare. waxa uu yidhi: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa xasan amiin oo jooga Kismaayo. anigu waxaan tijaabiyey suuratulfiil 100 ayaan ka akhriyey, kadib meelo khatar ah ayaan si nabad ah ku maray. allah dartiis suuraddaas ha la ogaado. maasha allah Jaabir, aad baa u mahadsan tahay, waa arrin wanaagsan. ha la ogaado buu leeyahay oo suuratulfiil qofka muranka keenayo oo odhanaya suuratulfiil maxaa loo akhrisanaya, dee kaasi waad dareemaysaan oo qur'aankiiba uu cadow ku yahayba. suuratulfiil iyo qur'aankao dhanba waa akhrisan kartaa, waxaad u akhrisan kartaa. haddii yidhi suuraddan waa suurad cajiib ah oo halka looma gaarana inaad ku dhegta ayaa loo baahan yahay. Jaabir, aad baa u mahadsan tahay. waxaan ku xijinayaa daawado kale. waa gabar Soomaaliyeed, waxaa la yidhaahdaa Aamina Cismaan. waxa ay tidhi: jazaaka allaahu khayr sheekh, 2 duco oo hore aad u soo gelisay, allah muraadkayga ugu sahlay, jazaaka allaahu khayran. maasha allah. waa 2 duco oo aan hore u soo tabinnay oo ay isku dayday inay samayso, ilaahayna muraadkeeda ugu sahlay Aamina. oo qofka ku yidhaahda ilaahay bari oo xilligaas bari oo ducadan qaabkan u bari oo qaabka ugu ducayso, ilaahay uu ku aqbalayaa, miyaad maanicaysaa? maya. Aamina, waxaan leenahay ducooyinkaaga dhanba allah aqbalo. waa ku mahadsan tahay sida noola wadaagtay. waxaan ku soconaynaa dadkii wanaagsanaa ee inta badan khayraadka aan soo gelinnay ka faa'iiday. waxaan ku xijinayaa walaalka la yidhaahdo Cumar Sayid Al-Ashcari. maasha allah, waa arrin sugan. sheekha waxa uu sheegayo anaa tijaabiyey in badan oon ku liibaanay. fadlan haddaad tijaabinayso, niyadda iyo camalkaada ha hagaagsanaadaan. waa runtiis. qaar waxaa laga yaabaa inaysan weli natiijooyin fiican aysan ka helin. maxaa u sabab ah? waxaa laga yaabaa inay ahayd iska tijaabi oo waayo ilaahay miyaa la tijaabiyaa? waa maya. ilaahay waa huwa raasiq. ilaahay waa uu ka dhan yahay inaad tijaabiso inuu wax ku siinay in kale. waayo adigu yaad baryaysay, yaad qur'aankan u akhrinaysay, yaad ducadan u samaysanaysay allah subxaana wa tacaala. ilaahay ha tijaabinin qur'aankiisa iyo ducada ku ducayso, ha tijaabin. ilaahay muraadkaaga waa u sahlayaa. cumar, waxaan leenahay aad baa u mahadsan tahay. walaal la yidhaahdo umma cabdilaahi oo aad noogu xiran ayaa idan waxa ay tiri: maasha allah d s d t v, runtii waxaan idinka faa'iiday oo khayr xisaab ma lahan, ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo. waan ku faa'iidnay runtii. maasha allah, waan ku faa'iiday runtii. umma cabdilaahi oo walaal aad noogu xiran, in badan waan aragnaa. aad baa u mahadsantaan ku leenahay. waxaan ku soconaynaa dadkii wanaagsanaa ee aadka noogu xirnaa. way noo dambayn doonaan dadka negatifeka ah. 2 iyo 3 ayaan ka soo qaadan doonnaa oo ma isku badin doono insha allah. saciid cali cabdinuur oo walaal aad noogu xiran, facebookan uu siiyey calaamada taab fanka uu siiyey.
waxa uu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kalena waan salaamayaa walaalahayga muslimka ah. walaalkay waan ku jeclahay, ilaahay dartiis baan kuu jeclahay, ilaahay ridihiisa rasuulkiisaba ha ku geliyo jannatulfirdowsa. maasha allah maasha allah, ilaah khayr ku sii, innaguna ku jecelnahay waxaan ku leenahay aad ba u mahadsan tahay. waan ku soconaynaa dadkii wanaagsanaa ee talooyinka iyo khayraadkana la soo wadaagay. waxaa ka mid ah xirsiyo koofurow. maasha allah tabaaraka allah, sheekh allah ku xifdiyo adduunya aakhiraba, ilaahay darajo sare iyo diin naafac baan kaaga baryayaa. waan kugu dhiirigelinayaa arrinta aad waddo, ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah ku siiyo. maasha allah, aad baa umahadsantaan kulena xirsiyo. insha allah wixii karaan keenan ah waan wadi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo. dadka wanaagsan waxaa ka mid ah nuur maxamed xasan. daliil ay weydiinayaan maxaa waaye, war allaha ku uuntay tuug ayaa lagu dhahay, asaa daliil weydiine, taas miyaa daliil u baahan? yaa badan mu yidhi. waa runtiis maasha allah. nuur maxamed xasan waa runtiis. qofkuu yidhi allah ilaahay bari ayay waxay leeyihin daliil mu haysaa. hoyaad bari ku odhan lahayn marka, waxaan ku odhan lahayn ma asnaamtii miyaa bari lagu dhihi lahay? waa maya. ma qof kula mid baad bari lahayd? waa maya. ilaahay bari, ducadaan ku bari, suuraddan akhriso, wakhtigaa ilaahay wax weydiiso. dilidda u baahatay walaalkay meelo ma socotide, ilaahay ku soo ururiyo. markan waxaan u geli doonnaa hal ama labo. waxaa ka mid ah dadka inta badan dhibaatada ku ah meesha, dadkana maanicinta ku ah, inkastoo dadka qaar ay fahamsan yihiin. xasaan cabdi kulan. sheekhow waxaan daliil lahayn seen u qaadannaa? allahu akbar. yaa u jawaabay? gabar soomaaliyeed, shukri yusuf baa la yidhahdaa. oo haddaad aaminsanayn in qur-aanka daawo yahay, dee waxbaa akhrisan, daliil iska dhaaf. haddaadse aaminsan tahay qur-aanka inuu daawo yahay, akhriso, ilaahay kugu caafinayaa. waxaa kaloo ka mid ah nin la yidhahdo xamse xuseen. waxa uu yidhi anigu waan ka shakiyey, waayo maxaanu culummada waaweyn uga maqli weynay? waannu dhegaysannaa mar walba maxaa culummada waaweyn aan uga maqli weynay oo aan dhegaysanna? waxaa laga yaabaa culummada inaad ka maqashay, laakiin aad adigu tahay maanic dadka inuu khayrka seejiye rabo. waxaan ku odhan lahaa dadka yaan la dhibin oo khayrka yaan la seejinin. muraadaad bay leeyihiin, arrimo bay leeyihiin, kurbaa haysa, inay guulaystaan bay doonayaan. adigu haddaadan khayr rabin, muraad lahayn, arrimuhaaguna dee ilaahay uu iska toosiyey ama aysan kuu toosnayn, laakiin khayr diid aad tahay, dadkaa seejinin. walaalahayga meeshan ku xihan, barnaamijkan waxaan ugu talagalay inay idiin noqoto shidaal dhiirigelin, inay idiin noqoto arrimihii aad doonayseen oo khayraadkiinnii inaan ka daalin. adiga daawanayo, haddii aad samaysay barnaamijyadaan soo tabinnay oo suuradaha ahaa, ducooyinkii ahaa, welina aad iska garala'dahay, adiga isku laabo, daharadaada ku laabo, xilliga aad wax baraysa ku laabo, halkaad wax ku barayso ilaahay aad kugu weydiisanaysa ku tukanaysid, daharadeeda eeg, dharkaaga eeg, qalbigaaga eeg, ducada badi. markaas haddaad amaakintaad daahir kuu tahay, jidhkaaga uu daahir yahay, adiga dhan aad daahir tahay, qalbigaaga uusan waswaasi dhib uusan ku jirin, oo ilaahay inta gacmo u taagtid aad tiri ya allah aad tiraahdo, inaad muraadkaaga helaysid waa laa shaka. insha allah barnaamijkan wuu inoo socon doonaa. walaalahayga ku xihan meelahan aan wax ka soo tabinno, kommentiyadoodu waa waajib inaan soo tabinno. halkaas baan ku soo koobayaa. hada billahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.